kulan qada sharfeed oo ay soo qaban qaabiyeen tiimka Cafis ee Muqdisho kaas oo ah mid lagu dhiirigelinayay ciyaartooy ka timid Finland oo u kala ciyaaraya xulalka Banaadir iyo Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. ujeedka ciyaaraha ayaa ah isdhaxgal bulsho iyo ka shaqaynta nabadda iyo iscafinta oo ah udub dhaxaadka horumarka dalka. qaar ka mid ah ciyaartooyda iyo dhalinyaro ka shaqeysa horumarka ciyaaraha oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan ciyaaraha dalka ka socda. dalka markay imaaday hadda Soomaaliya waa sanadkii labaad oo hadana oo soo keenay sanad kale waa joogo oo markaa 1 year ago isla barnaamijkan kubadda aan u imaaday sanadkan waa kasii dibnaad oo markaa ciyaaro gobolay oo saawa sheegay ilaa 6,000 qof garoonka iskugu imaanayso waa fursad qaali ah weliga ay leeyihiin markaa waxaan rajaynayaa sidii ay maanta u imaaday dhalinyarta halkaas joogta markaa Finland inay markaa wadankooda u imaadaan oo markii waxa uu yimid dhalinyarada markaa ku dhashay waddanka Finland oo laba ciyaaraysa Galmudug iyo laba ciyaaraysa Banaadir ina markuu dhulkooda hooyo dadkoodii aan soo barno mar labaadkana waxaan rabnaa in mataqaana ay ka qayb galaan oo arkaan dhalinyarada ku dhalatay waddanka Finland inay dul leeyihiin ayna ka qayb galaan mataqaana ciyaaraha mataqaana maamul goboleedyada ilaa amarkii waxay noqotay in afartoodii laba Galmudug ciyaaraysay laba Banaadir ciyaaraysay finaal isku soo baxaan waana farxad aad u weyn bulshada diritoodana aan u rajeeyo kii guuleystay uu yahay annaga guuleystaheena oo galkiisa aan taaganahay oo laakiin yahay sida sameeyna aan rajeynayno sida oo sameeyna aan rajeynayno in ciyaartooyda Finland mibadiin aan soo badinaa oo fursado fiican waddanka waa yeelaan waxa jiro ilmo ku dhashay waddankii dhaqankeena aan aqoonin loo sheegay kaliya dhibaatada Soomaaliya ka jirta loo sheegay wanaag ka jiro maanta waxaan jeclahay afarta ciyaartooy markay laabtaan maadaama isboort ay yihiin inay u gudbiyaan wax meesha ka jiro inuu dhib badan uusan jirin. weli xaashi oo ah gudoomiyaha guud ee ololaha Cafis ayaa sheegay in mar walba muhiimad gaar ah la iska saaro isdhaxgalka bulshada iyo ka shaqaynta nabadda iscafinta. tiimka Cafis aan idin kula kulana waxay tahay waxyaabaha aan laga wada shaqaynayo oo waddankan u baahan yahay markii la doonayo waddankan inaan dib u dhiso waddankan siyaasad kaliya dib looga dhisi karo dadku waxay madaxweyne dhisi karo ama siyaasi dhisi karo waxaa dhisi kara in culture-kii dhibaatada markii horeba keenay oo qasbay dhalinyaradan ciyaartooyda soo waxaan inay waddan islaamid ku dhashaanba markii hore keenay in laga hortago oo sidee looga hortagayaa waxa looga hortagayaa isfahan iyo isdhexgal iyo dialogue wax la yiraahdo iyo iscafin iyo isdulqaadasho ayaa looga hortagi karaa annaga waliba ka duulayna inaan dhaqankii hore ee nadaashaday oo markii horeba dagaalka lagu bilaabay ee naqaxiyay inaan ka hortagno oo waxaan u hortagaynana ay tahay isdhexgalka bulshada dhalinyarada. Axmed Cumar warbaahinta qaranka Muqdisho.